cabsato waxyaabo badan aad gabdha Soomaali ka kaadisay Amalia waxaan kale oo aan rabaa inaan ku sheego adiga Muna Kastumo qofka aan la hadlaayo kande muno la wasaayo muno sisi muno sarqaansan muno nooce muno meelaha taalo kan marka ade xaaskay wax iga qadqaaday wax igu sameysay aniga ma ogaan karo sometimes I'm asleep السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتا كحران برتيدا يوتيوب كا ميل والبا أو الدنيا دا كجوكتان هداي مالين إدين تاي مالين وناكسن هداي هبين إدين تاين هبين وناكسن انتا كدب ما انتي وحان ربا إنان كهالو أرين هيساتا سوشيال ميدياها هداي نقطة يوتيوب إيا هداي نقطة فيسبوك أرينتاس oo dhaxtaala boss baas iyo gabadha Muna leeyahay waxaan rabaa inaan boss baas mid dhaho Munane aan mid dhaho aniga uma socdo inaan u kala hiiliyo ninkaas iyo naagtaas shalay isqabay maantayne sidii gunti baraha bulshada isku fadeexaysanaya ama isku caynaya ma doonayo in aan u kala hiiliyo ee waxaan rabaa in aan u aqli celiyo aan ku hormaro boss baas niyahow waxaa tahay nin weyn da ahaan aniga wax badan iga weyn midda xigto waxaa tahay nin jilaa ah oo ay Soomaalidu wada garanayso majaajiladiisana ay jecel yihiin hadiiba ay dhacday in adiga iyo awridaada aad is afgaartaan ama aad isfahmi weydaan ama aad isku dhacdaan hadiiba ay dhacday waxay ahayd in aad iska aamusto ayada waxay rabtaa ha kaa sheegto hadday doonto booliska kugu wacdo waxay rabtaa kugu sameeydo in aad raganimada ka raacday ahayd xaaskay wax iga qadqaaday wax igu sameysay aniga ma ogaan karo sometimes I'm asleep because qofka duu xumaan ku rabo wax kasto ku sameeyna because and this person knew that like had no interest in her yeah qofka marka adiga interest aan ku lahayn qofkana wuxuu isku dayaa nooc kasta inuu ku milkiyo haddii anigana adoon ilaahan ahayo ilaaha bisa milki kara bani aadan ima milki karo blackmail kastoo la sameeyo oo wax kastoo la sameeyo siyashay intan dulqaadan karo waa dulqaatay calafkii waa dhamaaday markii la ogaaday there's no way back mataqana boss baas going back there la dhahay marka how can I destroy him hada boss baas ima soo noqonaye sen sameecada uga hadlaya bulshada waxan ugu sameeya marka horta waa ogtiin meeshan shirqool la ii dhigay wixii ilaaha fadeexa ka dhigay ana kama dhigin ma faham marka wax kasto dhaco ani horta waxan ka shaqo leeyahay amuurahan haba yaraatee ma jirto midda kale waxaan adiga hadda kugu dhacaya ama lug kulahaw ama lug ha kulahaan ama adi bilow waxaan aan daawanayno dabcan waxaan filayaa in ay yihiin wax adiga laga jarayo maxaa yeelay intaas waxaad ku dhex jirtaa dumarka ishaysta arimahooda niyahow midda aan ku leeyahay ayaa waxay tahay maadaama aad tahay nin weyn waxaan ma ahan wax fiican waana foolxumo hadda waa ay dhacday mar kale si aysan kugu dhicin iska ilaali oo si caadi ah u noolow والله si wanaagsan buu hadlaya niman badan oo naaga qabo waa jiraan naagahooda markii ay isku dhacaan
ma yimaadaan baraha bulshada. laakiin waxaad moodaa ayaantan dambe dadkii waaweynaay ama dadkii la yaqaanay oo ay Soomaalidu garanaysay markii ay isqabtaan inay baraha bulshada ku soo ordayaan sida in social media yahay maxkamad. social media ma ahan maxkamad ee waa naar. nolosha lagu nacsiinayaa mar haddii private kaaga la ogaado. ilmo inay idin joogaan aniga ma aqaano, aqoon dheer idin malihi, laakiin haddaad xataa ilmo haysataan ilmihiinay dhaawacaysaa mustaqbalka fog. boos baasow midaas baan ku leeyahay, wax walba oo aad arrintan hadda jirta aad ku dami karto ku dami. gabadhan haddii ay sharaxaaskaaga ahayd ku dheh walaalay aan kaa nabadgalo, faamilkeeda u dir, muuqaalay kaa haydaa, waxyaabo badanay kaa keeni kartaa, waxyaabo badan oo ceebay kaa keeni kartaa. soo nin iyo naag isqabane dee waxba uma kala qarsana. waa run sirtaaday haydaa, wax kastay kaa hay kartaa. aniga waxaan kugula talinayaa in aad arrintan iska soo gabagabaydo. intaas baan boos baas leeyahay. munoy marka koowaad waxaad tahay qof dumara. marka labaad anigu ma hubo mana ogi inaa hooyo tahay, laakiin waxaan qiyaasayaa inaa hooyo tahay oo awlaad ah haysato. marka saddexaad qof caan ah oo la yaqaano filimaanta majaajilada ah inaad dishaan filan anigu ma daawado, laakiin waxaan u malaynayaa haa, because dhowr mar baan arkay adigoo arrimahaas ka hadlaya. qof title laha tahay. hadda waxaan kaaga xishoonayaa anaa nin rag naqday, anaa kaa aamusay, inaad iga aamustida ku roon. haddaad aamusi weysid muna ma cabsato waxyaabo badan aad gabdho Soomaali ka kaadisay. amaalyaal waan soomanahay, soonkaaga ma jiro, salaadaada ma jirto, ninka ku yaqaanaa ku yaqaan, gabdhihii iyagaba way is arkeen, ma fahantay? qaarkoodaan aad sii buuxa weli. waa fahantaa maleyna boosbaas ilaahay haddaad taqaanid oo rasuulkiisa taqaanid, bal Soomaaliya idinkana maqla. boosbaas kitaab jaamac inta soo qaadatid waxaad ku dhaarataa yaa oo tiraaha waxay wallaahi ugu bilaahiya gabar Soomaaliyeed aan misibir ka qaadan screenshot ku soo dhaaro. waan soomanahay, ma soontid, been loo waa tahay. markii ma soontid lagu yiraahdo waxaa leedahay sokoraan qabaa, ma adaa sooman. been maxaa u sheegay? beenta deegi soo dhaara gabar Soomaaliyeed aadan screenshot ka qaadan. haddaad sii beenisidna waa furaa noo ani, waa furaa don't ever lie. been ha sheegin, doqonnimay ku tahay, dabaalnimay ku tahay. aqligaadii garaadkaaga hadduu ku siiyey aniga micnaha kaama daba qaadanayo. inlaan dhiiggaygiyaa tahay, dheecaankaygiyaa tahay, walaalkayaa tahay, ma kaa daba qaadanayo. xagga iga tuur. haddaan kaa daba qaadanayo mida walaalkayo ani cunugayga camal aan ka dhigtay aan ka daba qaadan lahaa. marka aniga saas ma ihi, dadkayga kuma soo noqdo, walaalahay kuma soo noqdo, laakiin aniga nin maali. marka waxaa shuquranta adigani aniga waxaad iga haysid yaa naagtan waxaa waaye naagta aad micnaha kuu siigeyn jirtay. caasho qurunta aniga waa kuu siigeyn jiray, labiskaan kaa dhigi jiray, micnaha video call aan kuugu siigeyn jiray, ilaan wax kuwa saalacdahay adiga anaa kuu siigeyn jiray, dharkaa hortayda ku bedelan jirtay. maxaad u baahan tahay? caasho qurunta adi anaa kuu siigeyn jiray. sawirkaas ana ma isugu kee qaawinno, maxaa isugu kee qaawisaane? waay taa ani dhala ma isku qaawinayo, waa kuu siigeynay sa yaa soo qirade. aniga baraar cadan kaaga qaaday, adiga laakiin inta imaatid baraar cad maxaa iiga qaadi weyse? naagaha aan u siigeeyaa ka mid ahayd aabbaha was. naagaha aan u siigeeyo naayaa ilaan caasho qurunto, naagaha aan u siigeeyo taleefanada ugu siigeeyaa number 1 ka aaday. ilaan waxay isdhahayeen naagtan farac damba ma lehe yaa qooqay tacbaan u taamuna meesha nooga siigeen. ilaan ani konton mii mogida 175. midda koowaad oo aad ku qaldan tahay waxay tahay gabar
dumar kula ah oo walaashaa ah ayaad soo ceebaysatay ayadoo sigaar cabaydaa keentay waad jaa'ifayday suxun baad ula dhaqantay khalad waa qalad xitaa waxay awood u leedahay maadaama aad wada joogtaan London in ay ku dacweydo dhibaataa kaaga imaan karto maxaa yeelay waa mamnuuc qof sirtiisa inaad baraha bulshada ku faafido midda kale adiga soo gabar ma tihid soo gabar kulama dhalan inay kuu joogtana ma aqaane haddayba kuu joogta xataa gabar ma rabtaa in gabadhaada la keeno baraha bulshada ama walaashaa no dumar waa tihiin waa iscaay kartiin waa caadi laakiin in aad siraha aad ka haydo gabar walaashaa ah oo shalay saaxiibtaa ahayd aad baraha bulshada keento waa ceeb midna aan kuu raaciyo adinkoo dumara haddii aad sidaas isku hagaraynaysaan ama aad isku liidaysaan ama aad isku yasaysaan ama sidaas aad isku bahdilaysaan marnaba ha sugin in raggu idin naxariistaan marka koowaad adinka isku naxariista isku ceeb qariya markaas kadib raggu waa idin naxariisayaan adinkiyaaba is cunaye ilaahan xaragana mid baan leeyahay boos baas iyo muno shalay ayaga isqabay hadday kala tageen mid adig ku taalla maaha la soo dhaxkali inta ku xanuunsanaya videoga yar iyo waxa yar iyo codka iyo balaayada kala dhuureysaya ninkaagan wacaya haddii ku cusub waayo ciidamkaagan cuna adigana nacala quuta tay ku yaali iga la xaban ku dhanaya haana soo dhaxgalina aniga iyo munan isu kaaya daaya waan ku sheegay dadkan macal wadaadada isu dirisiin iga daaya talabaad ka aniga iimaanaya waba inii jeedaan maxay iga soo doonayaan horta kuwii oo youtuberadi waa iska hor dhaqaajiyo ma isoo galaan aniga waxna ma ii sheegi karaan maxamed buskud daacad ilaahay buu hadlay waa run horta qof adiga ku rakaateeyay mar hore inuu qofka kalena dagaal keenayo oo waliba hadduu uu kugu dili karo taleefona ka sheekeynaysaa uu qorta ku dheerayn karo yaa waa qofka qaadanaya warka ay samaysay muno rakaatada ay aniga igelisay marka horta boosbaas halkan iga dhigay iyaga isqabay inankaasay waa naagta qaadanaysa ii sheega run ayaan la sheegay waxaa ina weydiinayaa dadka oo dhan oo Soomaaliyeed وأي قفك أنت ركعت لجليو شايفنا أيها كوسوع أيها بركيسة waxaan kugula talinayaa wixii laga keeno waa laga keenay adigana haddaad muno wax ka heedo ha ka keenin oo kala xishoodo dad waaweynaatiin saddexdiina ee arintan ay qusaydo waxaan idin sheegayaa sanad ka hor meeshii aad Soomaalida u joogteen maanta uma joogtiin waad qiimo beesheen waad isliideen hoos baad isku dhigteen maxaa yeelay dad waaweyn oo ka sheekeynaya cunno ay wada cuneen dad waaweyn oo ka sheekeynaya gogol ay wadaageen dad waaweyn oo ka sheekeynaya waxyaabo wuxuusnimo ah ilmo yaryar baad dhasheen ilmo yaryar baa idin daawanaya oo idin taageera dhaqan xumada aad baraysaan kuwa idin ku xiran ama kuwa yaryar ee aad dhasheen ama kuwa aad qaraabada tiin ama kuwa baraha bulshada idin ka yaqaanaaba ka badan ba wax walba fadlan joojiya noqda dad lagu daysado ha iskaraama seejinina ha isbahdilina midda kale balwadihiina adinkay qaas idin yihiin balwadu wax la isku caaya maaha sigaar waa la cabi karaa qofku waa qayli karaa qamri waa u cabi karaa ilaahay yaa kula xisaabtama laakiin inaad adinku isoo bandhigtaan muna waxaas waa laga fiican yahay aad iyo aad anyway waxaan idinkula talinayaa oo aan idinkugu baaqayaa sidaanu si maahan ee xal kala keena arintana dajiya ilaahayna u laabta adinkaa isbahdilaya
adinkaa isliidaya adinkaa hoos isku dhigaya adinkaa isqiimo tiraya haddaad sidaan ku socotaan meeshaad shalay soomaalida u joogteen maanta uma joogtiin qof walba sanka idinka qabsa haddaad sidaan ku socotiin nin iyo naag isqaba colna maaha heshiisna maaha furiinka ilaahay baa jideeyey guurkana ilaahay baa jideeyey waa la isku dhici karaa waa la kala tegi karaa laakiin in youtube la isku soo fadhiisto laga sheekeeyo wixii la isla cunay shalay iyo sidii la iskula joogay waa wuxuusnimo dhaqan nasab ma aha guulaysta waxaan filayaa inaad taladeeda qaadan doontaan waxaan filayaa muno iyo boosbas inaad taladeeda qaadan doontaan xarago adna waxaan ku leeyahay walaalay wixii kugu dhacay wax kuu qoranay ahaayeene meeshaas uga har waa tahay haddii aad ku cusubtaa barteeda youtube-ka fadlan kusoo biir haddii aad hore ila joogtay waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan la garay si dad badan uu u gaaro midda kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalaha barteeda youtube ku xidhan kuwii hore ila joogay iyo kuwa gadaal iga soo biiraba youtube-kayga meel fiican ayuu marayaa subscribe-ka aad saarteen meel fiican uu gaarsiiyey kuwa gadaal iga yimid soo dhawaada gurigiinna waa kuwa hore ila joogane laan dheerayaalaad tiini guulaysta